Tumekubaliana as a community, we are all of us supporting BBI. kulamada ku saabsan warbixinta guddiga dib u heshiisiinta iyo mideynta shacabka ee BBI ayaa waxay hadalhayn weyn dhalisay maalmihii ugu dambeeyay. Haddaba magaalada Garissa qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ayaa arrinkani ku kala aragti duwanaaday, halka mas'uuliyiinta intooda badan ay taageersan yihiin, waxaana arrinkani si qayaxan banaanka uga istaagay hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalka. Kulan ballaaran oo lagu soo dhaweynaya kulamada ku saabsan BBI-da ayaa lagu qabtay magaalada Garissa, waxaana kulankani ka soo qayb galeen dhammaan odayaasha waxgaradka iyo mas'uuliyiinta ka soo jeeda deegaanada Dadaab, Lagdera iyo bartamaha magaalada Garissa. waxaan kala sabood gareynaynaa wax allaala wixii nabadgelyada wadanka gacan siinayo ayadana waa sabood gareynaa sababtaasoo ah haddayna nabadgelyo jirin horumar ma jirayo, hadday nabadgelyo akhris ma jirayo, hadday nabadgelyo siyaasad ma jirayso. marka annaga haddaan nahay waxaan sabood gareynaynaa mu'ooniga madaxda. waxaan iskugu imaanay annagoo ee mas'uuliintii laga soo doortay Dadaab iyo Garis iyo Lagdera inaan meeshan ka xaqiijino wada hadalkan socdo oo wadanka ka socdo ee BBI-da oo ku imaatay handshake Raila iyo Uhuru ka imaatay. annaga haddaan nahay dadkii meeshaas mathalay oo maarta duqeydii iyo dumarkeeni iswadwadano, waxaan leenahay initiative-ka labada gacmood baan ku haysanaa. waxyaalaha dhibaatada na haysato oo za community-na meeshaas ka sheegaynaa. sabtidii markii la gaaro axadina raaliga waa imaanaynaa. waxaa jiraan hadduu ilaahay insha Allah initiative-kan dawladda wadataa national wax maarta wadanka oo dhan ka socda, annaga inaan qayb aan ka noqono waa arinta maarta loo baahan yahay. waxyaalaha ay ka adras garanayso tacliinta oo kale arrimahan maarta dhibaatooyinka jiraan kulli meeshan aan ka sheegaynaa hadduu ilaahay insha Allah. Mas'uuliyiintii halkaasi joogay ayaa waxay fariin culus u direen dadka faragelinta ku sameynaya kulamada looga hadlayo arrimaha mideynta bulshada. waxaan u sheegaynaa dad baa rabaan reerkan inay macnaha lugaha ku soo marsadaan, ay leeyihiin dhib baa jiray kan. waxaan leenahay aan u jeedinaynaa mas'uuliyiinta, waxaan leenahay wixii dhibaato qabta waxaad go'aansan, laakiin annaga hana soo faragashanin. annaga waan taageersanahay initiative-kan, waan imaanaynaa barsada shirka ka dhici doonana sabtida dhici doona oo maarta memorandum lagu hagaajinayna waan ka qayb qaadanaynaa. annaga initiative-ka madaxweynaha iyo Raila waan taageersanahay. meeshan waxa iskugu imaaday waa Jubilee iyo ODM kulli way wada joogaan. taa waxay ku tusinaysaa in macnaha ay tafaraaruq ay jirin oo hal mid aan nahay. From Lagdera, Dadaab ilaa meeshan aan joogno township waxaan ku go'aansanay BBI inaan support gareyno. Si kastaba ahaatee, qodobada ku xusan warbixinta BBI waxaa ka mid ah in wadanka uu yeesho ra'iisul wasaare, sidoo kalena haddii ismaamulka uu qof rog ah hogaaminayo ay haweeney ku xigeen u noqoto. Maxamed Mooge, warbaahinta Star, magaalada Garissa.